الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا وبعد أحبتي في الله waxaan rabaa in aan kelimadan yarta uga hadlo dhowr kelimo oo dhib keentay ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadlaysa dhib badan ku keentay maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraa eygii loo foori badooyo arrinkaa fooriba uu ku wareera macna uu ku wareeraa weeyaan haddii xagga meel walba looga dhawaaqo qofkii eygii waa wareerayaa hadda Soomaalidii weerar ayaa ku dhacay iyo wareer iyo dhibkay isku haayeen haddana waxay ku qabteen cibaadadoodii cibaadadii dhib waxaa lagu hayaa aan weli soo marinin cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala tawqiitiya uu ka dhigo waqti u yeelay ayaa waqtigii ilaahay maahane waqti kale loo samaysto oo hawa cidlaa ah waxaan ka rabaa mawduuca asaga ah bishii Ramadaan way dhammaatay waxaan u malaynayaa inay maanta Shawaal ay tahay 3 ay tahay u malaynayaa waa maalintii 3aad Shawaal markii la yiraahdo bisha Ramadaan horteeda saad ogtihiin diintu waa itibaac nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan uga dayanaynaa annagu nabi kale ma qabno wada kaana ma qabno cidii iska diida mooyaane inkastoo maalmaha dambe aan arkayay waxaan kitaabka quraanka ka helnay ma rabno nabi ma rabno iyadoo leeyahay waa arkaynay oo rajmigii xataa rag inkirayaan oo kitaab quraan kor u qaadayaan walaalayaal bisha Ramadaan iyo ifdaarku labadaba Shawaalku waxay ku waajibaan biru'yati al-hilaal bisha arkideeda adiga arag ama ha lagu arko ha lagu arkaa cudur ka yimaada hadda adu arato problem ma laha ada arkaba bisha Ramadaan iyo bisha Shawaal arag ama ha lagu arko ay ku sugnaataa iyo Shacbaan oo 30 noqday habeenka 31aad muran kama taagna ama Ramadaan oo 30 noqday habeenka 31aad muran kama taagna labaas baa lagu sugaa maxay nabi wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam en la tasuumu hasoominina xataa taraw hilaal intaad bisha ka aragtaan hilaalka waxaa la yidhaha bishu inta saddex habeen inta ka gaarayso hilaal baa lagu magacaabaa kabacdina qamar ayay noqotaa walaa tufdiruu hana afuranina oo ha afurinina xataa tarawhu intaad ka aragtaan bishii Shawaal hilaalka hore Ramadaan ayaa loola jeedaa damiirkan dambana bisha hilaalkii waa tahay laakiin bisha waxaa laga wadaa Shawaal fa in qumma calaykum nabi wuxuu yiri haddii laydinka daboolo ood u jeedi weysaan faqduruu lahu ama fa aqmiluu 30
يوما من شعبان أو 30 يوما من رمضان سايو كسغنانيا فإن غم عليكم أيضا بشي دلاتي أيي كاغر سومي كرتا أدي wax kaa quseeyaa ma jiraan iyadoo dhalatay kaa qarsoomi kartaa waase in meeshii uu wax calaamo ay taalo weeyaan maca riwaayada kale waxay ahayd laa tasuumuu qabla ramadaana suumuu liru'yatihi wafduruu liru'yatihi fain xaalat duunahu saxaabatun ay ghayaabah faakmiluu 30 يوما من شعبان يوما شعبان كان أو رمضان كان رمضان كورها سومنا شوال كورنها أفورننا haddii laydinka daboolo loo jeedi waayo bishii loo jeedi waayana bil walba 30keeda dhammaystira inaad tiraa maaha laba ciidood ma kaamil noqoto oo isku xigtaaho ayada ciidul adxaa ama midda kaa kama nusqaanto taa waxaa ajirka un baa loola jeeda wax kale macnaha maahan ayaa loola jeedaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inaa ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub ashahru haakada 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 yacni 29 ومرة 30 يوما أنه أمت أيان نهي أمي أن وحبا أن قولي وحنا أن حساب وليقين لكن وحال ديدي هذا حساب كان ضمبول لك كانوا أما فلكي هذا بلايا قبو أما حدق لفيري هذا ولدق هل يراهدو أما وعلم هلا الشيء كاس أنك وحما أنت نقول الدون سنة إن ندبك عنه فلكي بلايا حساب iyo xidig iyo bilaa cad noqotay oon cibaado u kaalmaysano wax jira ma baahan taaso haddii laakiin loo kaalmaysanayo maalin hebel qoraxa madoobaad doonta maalin hebel bilaa madoobaad doonta maalin hebel rooba ma hebla kaas gooni weeyaan taana anna waxaan ugu furan suumu liru'yati wafduru liru'yati taas anna ugu filan ina wax ka aan raadin meesha kuma jirto bishuu laba maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu ramadaan sooma sagaaday ahaayeen sodo intuu soomaba iska yar nabigu calayhi salaatu wasalaam waxuu ku sugnaanayaa marka hal qof hadduu arko bisha ramadaan bilowgeeda way sugnaanaysaa calaa khilaafi alculamaa calaa khilaafi almadaahib isu khilaafsan yihiin لكن وحن سوق قادنا حديث عبد الله بن عمر والنبي كوري عليه الصلاة والسلام أو يردتك أياه استسير هذه مع على تراي وحال وذا واتا لكن حقيقة الله ما هايو ومد ما أنتم لو بدأ يهجو تغالوا واستسير يا واتا الضمانك المه يناجيه وحبا الشيء إيش وحنا عيا الشيء جيان laakiin intaa marka wuxuu yiri dhacday oo dadkii isu tusinayaan oo bishii in dhaat istusinayaan laakiin gacanta aan lagu hayn oo huuhaa warku oo yaa sida maanta tirta huuhaa ay tahay fa akhbartu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inni ra'aytuhu nabiga waxa uu sheegay uu rabo uu yiri inaa bish aanu arkay fasaama wa amara naasa بصيامي خلاص عبد الله بن عمر بس ونبي قبص عليه الصلاة والسلام مركا نبي كو صوم أمدينا وأمري صوم أيو يري تنكلا واحد أكتهين نبي قالنا عليه الصلاة وإني أعرابي أيا أيمت مركا سعود نبي يو إني رأيت الهلال بشي أيا عركي نبي مركا سعود أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم وتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم انت أيها ذيك سدي مركا النبي محو يري غير بادية تاي وحما أقول مرة وحو يري يا بلال أدن بلال أغيسي في الناس فليصوموا هصوموا ويان
saasaa marka waxaa la soo qaataa bisha awalkeeda markii ay tahay in la soomo hal qof lagu soomi karo caadil ah. war maanta caadil maba lahaaye dadaan cirdigoodii iyo sharafkoodii midna aan isnabadgelinaynin oonba isku caqiide ahayn oo isu gaalnimo xugminaya oo qoloba qoladii kale meel ay ku xiratay maanta caadil maba lahayaba. qof maanta nabadgala ayaaba iska yar. waxaan arkayay qof inta meel yimid aayad quraan soo daliiliyey. aayaddaas waxay sheegaysaa in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu. waa sax, qofkii wax la yimid oo haddana faasiq ahay qusaydaa. waxaa la rabaa daliilka iyo madluulka iswaafaqaan. maxaa yeelay haddaad maanta aayad daliiliso, aayad akrido, ciddii arrinkaas u munaasabay aadi mooyaane adiga meeshaad ku luuqluuqina aayaddu ma aadeyso. midda kale ciddii wax la timid ay arrinteeda leedahay. waxaa maqla iyadoo leeyahay bishii waa weyneed, habeen saddexaad laleeyahay. walaalayaa nabigeena calayhi salaatu waktiga uu joogo ogtihiin waa la iskhilaafay. bishu waa 3 iyo waa 2 la isu khilaafay. waxaadna ogtihiin haddii qolo maanta oo kale afurto, qolana biri ay afurto, qolana saa dambe ay afurto, ee saa dambe loo jeedo, qofkii saa dambe afura bishu waa 1 weli ku murmaa. kii saa biri oo kale afura wuxuu leeyahay macnaa bishu waa 2 uu leeyahay. kii 1 afurna wuxuu bishu waa 3 weeyaan. taa wax la yaqaan macnaha weeyaan. waa wax la ogyahay macnaha weeyaan. qof walba tiisa ayaa meel qumanihiisa qoorta ugu jirta taas. saasoo nabigu wuxuu leeyahay markaad aragtaan ayaa idin 1 idii ah. maxaa yeelay bishu waa makhluuq ilaahay abuurta weeyaan. waad aragtay ilmaha yaryarka oo 9 bil midba oo dhammaystay ayaa cunug waxa ku dhalanaya 2 kiilo 1.8 mid 3 kiilo 4 kiilo bar gabal ahaas macnaha ma gabal 5 gaara waxaa leeyahay in habarta la qala ma soo mari karaba. waa 9 bil ogow. shaygu markuu makhluuq yahay sida ilaahay u barbaariyo oo u buura ayay qusaydaa. wax ictibaar ma lahan. siqarna ictibaar ma lahan, weyna ictibaar ma lahan. ma la arkay masal lama arkin bis Muhammad ay taagan tahay. taa qatar weeye walaalayaal. saa haddaan uga gudbo marka waxaa soo harta marka saas ayaa lagu soomay. horta yaa iska leh iclaamka, yaa iska leh wadankii dowla lahu oo dowla islaamiya ah, dadkeeda u xil saaran, arrimaha diinta u xil saaran, weliba hay-adda garsoorka u xil saaran ayaa hadday arrinkaa ansixiso oo hal qof iyo 2 qof ay wax ay taskiyeyso in dadka akbaaq u dhawaaqdo, go-aanka ayaa iska leh. go-aanka iska leh. maalmood waxaan arkayay Soomaaliyo nin la yaqaano oo naqaano oo 2 alif guriga ku deganaa jiray inuu bishii sheegayay. qof kasta waa ogtaa, waa taqaanaa. aan waxba ka sheegi maayo. asna waa is yaqaanaa. waa la yaqaanaa. laakiin ka bacdi inuu ka laabto warkii in kale ma sheegi karo. wadanku hadduu dowlo leeyahay asay qusaydaa. amaa meelaha aan dowlo lahayn oo dowla islaamiya aan ahayn, dowlo kastaa waxay leedahay chief qaadiyay leedahay, nin la magacaabay leedahay, axwaalu shakhsiya diiniya wax loogu talagalay ayay leedahay. waa in asaga laga dambe. hadduu asagu iclaamiyo, asagaa laga rabaa inuu iska sameeyo kabac u iclaamiyo. amaa wadaad asagu awoodiisu ma lahan. asagu awooddaas ma lahan. waa meel iska jooga oo qol ku xiran inuu dadka faro ama sooma yiraahdo ama afura yiraahdo, asaga awoodiisu ma ahan. laakiin adiga haddaad shay ku kalsoonaato adiga ku caanfali kartaa. haddii addoomankii sheegaan oo islaamankii sheegaan oo gabadhihii ay sheegaan oo meel walba laga sheego oo dowlado kale ay sheegaan, haddaa adigu ku kalsoonaato shaksiyan inaad ku soonto ayaad leedahay. waa meesha madhabku uu ka cileeyaha u leeyahay. haddii qofkii intaas lagu sheegay soomay maalintii 30 ou dhamaystan waxuu samaynayaa, dee waa la isu khilaafsan yahay weeyaan. qofka waa iska afurayaa, meeqluuqahu gelayaa, istusi maayo, ma sheegayo in bishii maanta oo afuray ma sheegayo. maxaa adiga waa la tacsiirayaa. taas adiga
waxa ku qusay marka weeyaan marka danta ku jirta dadka in loo baafiyo horta maxay tahay waxa adiga hadda qofka wixii aragto oo nin culimo aad tahay isha aad ku aragto inaad difaacdo oo dadka u sheegto intii warkaa yeelaysa okay waay ilaa cid aadan aqoonin oo lagu soo sheegay waxaan arkayay aad weli uu mahadinayaa bishaan ramadaan bilowgeedii ninka hadlay idaacadan ka dhageysay meesha la yiraahdo Bambaaso wuxuu yiri bishii waa anagu waan soomeynaa hooy chief qaadiga markuu cilaamiyo soomeyna oo yiraahday ninkaas uu hadlay ninkaas run ayuu sheegay wuxuu anagu waan soomeynaa hooy yiri waxaan ku soomeynaa Sacuudiga bishii laga arkay on ku raacayna hooy waa dhag hadduu marka Sacuudiga ku raacay haddana maanta dambe uu ku raacay waa nin boos haysto rabbana Allahumma alayhi in ka soo madaalicdu shay jira ay tahayo hatta Sacuudigu ay samadaalic ba ay ogolayn oo ilayhiin qolol baa waxay ku soomaysaa mandiqadeeda hadda kan waan su'aalay 96 an mufti aan su'aalay haddii Soomaaliya bisha Ramadaan laga arko ka waramaan ilaahday iska dhaaf Soomaaliya haddii Yemen laga arko anoo shaqo ma leeyahay uu jawaabay waa fardan sidana waa tahay ogow maran kama taagna waa koow waxaa la rabaa marka dhamaadka culimadu markay ka hadlayaan fuqahadu waxay yiraahdeen laba qof ka ihtiyaad bisha loo dadaalayo soonka loo dadaalayo labo qof ka yar ma la aqbalayo oo waliba caadilin caadilkii weyn fi hada اليوم من caadil qofka ugu caadilsan yaa waayo waa ninka qofka ugu cilmi badan oo cilmiga badan sheegta bi ay fan akhrinaya haddana islaamkii marba gaalaysiinayo caaya weeyaan ma caadilna marka waaye ma caadilna maaha walaayo cadaaladaas baatina iyo daahira inta way leedahay qof midii daahirada laga waayay si kale ma loo aamini karo weeyaan haddii laba qof la helo ayaa waxa laga daliishanayaa xadiidkii macruufka ah ee taqeeneen marka dadku waxa ogaataa marka arinka asaga ah oo hal qof inay qaadanayaan la qaadanayo sida waxa qaba bacd asxaabta qaybkeedu way qabaan taabiciintii way qabaan ibn mubaarak wuu qabaa abu xaniifa wuu qabaa imaam axmed wuu qabaa imaam shaafici wuu qabaa kulligood waa goorma haddii qofka idaa kaana mukallafan cadlan qaydka ay u xiran idaa kaana mukallafan cadlan saas ayay qabaan ku ittifaaqsan yihiin ayuu xadiidkaas cabdullaahi bin cumar cuskanaya oo meecna aan haysanin inkastoo khilaafaad ka taagan qofka taagan yahay tan labaad waxaa weeyaan ifdaar maxaa lagu afurayaa waxaa lagu afurayaa laba qof ka yar ma lagu afuraayo waa inay laba ay aragto bisha aragto weeyaan waad ogtihiin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a ikhtalafa annaasu fi aakhiri yawmin min ramadaana dadkaa iskhilaafa maalin oo bisha ramadaan ka mid ah aakhirkeedii ay iskhilaafeen way iskhilaafeen waa loo jeedo macnaha waa loo jeedo macnaha weeyaan waa loo jeedi waaye markii dambe waxaa yimid laba reer baadiye ayaa yimaadeen maalintii dambe iyadoo galabta loo jeedi waayey ayaa galabtii dambe laba nin oo reer baadiye yimaadeen fashahida cinda الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam billaah weli way dhaarteen bishii inay dhalatay cashiyata amsi shalay galabtii inay dhalatay ayay kitaab ku mareen nabigu muxuu sameeyey faamara rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam an yufdiruu wa an yaqduu gada ilaa musalaahum waqti inay iska waa waqti fahmaysaa marka waa waqti aan ciid la dukan karin weeyaan oo ciidii waqtiga la dhaafay sida warka ka muuqata xadiidka muuqata nabi wuxuu iska afuro yiri birina meesha lagu dukanay aan ciid dukanay aan soo nimaadno waxaan arkayaa haddii aad tiraahdo oo maxaa lagu diidayaa 7 saac bil in la soo xirogeliyo dambiil lagu keeno iyo ee la aqbalo maxaa lagu diidayaa maxaa shalay dad arkay ayaa maanta dambe la aqbalaye waxaa lagu diidayaa waqtigaas iyo waqtigaas isma lahan waxay isku lahayn oo fahmaysaa isku lahayn hadda maghrib iska dhaafay daqiiqadka wadon kooma ku jira intaas ayuu ku jira kal kurro ku dhex jira daqiiqada waxba la ogaa karaa tuulo iyo guri iyo beer la degan yahay iyo masjid mawlac iyo masjid madrasa waxay ahaatee on mobil lagu haysa ma jirto hal daqiiq ayaa la isgaarsiin karaa hal daqiiqad ayaa taas kala bedelan yihiin ogowya ee lama diideen hadda wadanka iyo isagoo isku mid ku jira
وهذا عد كما هذا أن ساعدا أن شيء لغا ياب إن أركي لغا يابه أما هذا ساعدا لفيرسا لغا يابه ممكن أي تهي يا أي كوكل بدلينهين واحد يسوي مثال سنة مركب ملحن مركب هذا كود ضوء ما أنت آتي هذا dad badan oo caadiliin ayaa arkay oo intaas gaaraya tawaatur gaaraya hadii maanta walaalayaal qofku haduu ku yiraahdo ana arkay adiga aad aragtay warka waa ilaali kartaa ama hadii meheblaa laga arkay meheblaa laga sheegay waa la sheegay waa la arkay ay tahay war sugan ma ahan wayla dar waxa arkay dawladihii la qabsanayay oo kamid ahaayeen Mauritania mufti al-aam Mauritania cudur daar iyo bixiyay wuxuu yiri waan qaldanay oo yiri sidii maanta dadka ciidina waa cudur daar ay bixiyeen muftiga cudur daar bixiyay qof walba war kara meelaha ugu jira ugu dhex yaala YouTube dhex yaala cudur daar oo dhiibay markaas wuxuu yiri dadkii afuray waxaan u sheegaynaa inay soonka soo qaldeeyaan ilaahayna u laabtaan jalla u tooba keenaan hadda ka hor 3 sano ka malaynaya mar cudur daar bixinayay ay u soon bashay laakiin meeqay sheegeen 12 milyan ma ahayd ma qaan oryaal waxay tamaqaane inay kafaar gud u bixiyeen macna qalad inay galeen horta qofka hadduu qaldamo inuu soo laabtaaho waa diin bini aadamka waxa loo abuuray khalada loo abuuray inuu gafaal loo abuuray ilaa ka inuu laabto أو توبة كانوا أي محمد أقول شرطة وح على أو أركنا ملة لسكو مسيد لتشيو إنه حال غيابا دتك ورك صاش هاي أيهين دت سيجل أولى ليين أن انتدي لي أن كي أصلا تباه الشيء أما دت عامها هو اللي بعده كو أذك تيين استراها يسكبوا بسية وحال غيابا وحال غيابا دت معنا دراجة أبجري أو مقادرات كذا أبجري أو جات كعون جري oo waqtiga la soo boobsiinayo boob hijray hadda kor waxa dhacday 88 ma ahayd Soomaaliya ahayd waa bisha raga tageen way dhaarteen kitaab ay mareen bishii sidii maanta lagu ciiday markii lagu ciiday galabtii dambe loo jeedi waayay bataatanba galabtii ku xogtana waa loo jeedi waayay dad waxay ahaayeen xaq doonayeen waxay cilaamiyeen in maalin qadaa lagu leeyahay dadka lagu leeyahay dawladii jirta ayaa cilaamisay awalna waxa la taskiyay waxay ahay amray dawlay ahaayeen shaygu haduu bilowga ka sugan yahay hada ithbaat duu bilowga ka sugan yahay oo sifa sharciya oo lagu yaqaano shariicada islaamka sharci ku ah oo meel ka dhaxdo lagu bilaabo ka bacdi wuxuu noqonayaa saddex hadii maanta aad soonto qaraar wuxuu xirmayaa أما هديش فشرعي بالله وايو هذه حسابكو مالكو محل أول صحكو بالله بنم دو إعلامي صي أي تأيد كي هم علينا هذا جعل إن إيه أما سجالكي أي هذا جعل أمرنا إياه وقت جالس ويا إعلامي صي وأنا سوق قضية لما تبرر بلان معناها ملهان ما قف أعظم أقاضي حبها تسكيين ما هدي قفكو ونعكرا قفكو غلطمي كرا حلدو غلطمي كرا وأختها لما كان فليك أي شيء أركز أمرنا إياه حدك أي شيء أركز معناها ماهن وهذا مركو عسكريو حدق عطار اللي ايام كو قلدنا يوري او شيغاي قفكاس dhici karta qaladku uu dhacaa marka qalad uu dhaco marka dadka meeshii naftooda ku jirto oo alla ka cabsida ah in loo hogaamiyo fiican macna noocaas weeyaan taas ku tusinaysa waxa uu sheegay marka ibn al-Haddad asoo wuxuu leeyahay saddex hadii maanta hadii bisha la bilaabo oo wuxuu yiri bishii maanta saddex loo jeedi waayo anna nasuumu yawm al-hadi wa 30 waxaan soomaynaa oo leeyahay maalinta afwan maalinta soddon iyo koobaad soomaynaa oo leeyahay maxaa yeelay bilowgii hore ayaysan ku sugnaanin sifa saxiixa ay isku soo macnaha weeyaan shaki la qaba shaki weyn ayaa bilowga la qaba waan soomayn maalinta soddon iyo koow ayaa ka dhigaynaa oo leeyahay taasoo kale wuxuu leeyahay macna maalinta dadku waxay qaateen oo culimada kamid waxay qaateen qowl al-Haddad rag badan culimo ayaa qaatay oo waxay leeyihiin law shahida ithnan ala hilal shawwal labo markaati ah ayaa markaati kacay oo sheegay
inay arkeen bishii shawaal inay dhalatay thumma lam yura alhilaal bishii lama arkin habeenkii dambe isha lama saarin way sheegeen lama arkinin qoraxdiina ay macnaa samadiina ay tahay musxiya macnaa ay diiran tahay aysan caad uusan saarayn qof walba xataa ururta loo jeedi karo sidaa ay tay yidhaahdeen bacda 30 soddon gadaasheed maxaan samaynaynaa wuxuu leeyahay marka qadaynaa yawma qadaynaa sawma awali yawmin afdarnaa fiihi liannahu baana kownuhu min ramadaana laakin laa kafaarata calaa man jaamaca imra'atahu wuxuu leeyahay markii ay sheegeen oo 29 ay ku sheegeen oo aan sidii ku ciidnay maantii soddonaad haddii bishii la waayo maxaan samayhaynaa weeyaan wuxuu yihi qadayna waan qadayhaynaa huu yiri walaalayaal xaa lagu diiday waxaad arkaysaa hadda meelo badan waxaan ku hayaa dad soo qaatay culummo shaaficiyaa soo qaatay waran shaaficiyaa raggaad shala laheed waa ashaaciro jalaal suyuudi uu ka mid yahay ood lehed waa ashaaciro waa gaal aad oranaysay aad waxaad qaadanaysaa googacadala isagoo ou leeyahay waxaad qaadanaysaa wax isagoo ou sheegay iska daa qofaad gaalba u taqaano imaam aad gaalba u taqaano oo caqiidada ou haysta ashaaciro ay tood leedahay macnaa waa gaalba aaminsan tahay maxaad u daliishanaysaa kuwa kala daliisho khayr allah ku siiyaan oran lahaa marka muxuu yidhi marka sidaa hadday dhacdo qadaynaa waan qadaynaynaa aniga ma qoran ogoyaa sawma awali yawmin afdarnaa fiihi maalintii koowaad oon afurnay soonkeeda oon ciidinay halkaa maalin waan soo qadayhaynaa liannahu baana ciladu maxay tahay waxaa caddaaday kownuhu min ramadaan maalintaan ciidaynay inay ramadaan aheyd ayaa caddaato usan daaha saarayn waa si tidoraada kale weeyaan way caddaatay muran kama taagna way caddaatay ciddii diiday ciddii kaleba way caddaatay xujadii marka hore lagu soo xudo sharciga ma aysan ahayn waddankan kenya joogna jiif qaadi ma uusan iclaamin waa uu diiday xataa markii dambe uu iclaamihayay waxay mayday ahayd wax dhintay ahayd iclaaminta xataa uu iclaaminayey oo ou lahay hal la ciido udhaha laftigeedu mayd wax la rabo oo loo baahan yahay oo la raadinayo oo yaa kugu dhawaaqa leeyahay ayay ahayd mooyaane xataa laftii arrinta saxa ma aysan ahayn soddonka un baa la qaadanaya dadkii soddon soomay soddon un baa taas u muhiimsaneed marka waxuu leeyahay qofka kafaara lagama rabo oo la dhihi maayo qofku hadduu bil ramadaan islaantiisa ku dhacow jamaaco soonkuna waa fasaadayey kafaara gudna waa laga rabay amaa qofkan maalin ciid loo malaynaya inta la ciiday soonkii la furay hadduu islaantiisa ku ciido hadduu ayada ku ciido oo ka maarmi waayo hadday caddaato inay maalinta ramadaan hadday caddaato la dhihi maayo soonkaadi fasaadidaye macnaa kafaara lagaa rabaa maxaa yeele shubha weeyaan sidaa ayay qabaan kulliga qabaan imaamu nawowi waxuu qabaa asagu wuxuu leeyahy walow habata hilaalu shawaal hadduu sugnaado waxuu ku sugnaaday bicadlayn biru'yati cadlayn maanta maba lahayo ogow war caadil maanta taa lagu hayaa maanta dadka cadow ayaa isku ah culummo iyo caama cadow isku yihiin qof walbaa asagaa tartamaya qof walbaa asagaa taageero goobaya qof walbaa tiisa macnaa ma fiirinayo dhan kale ayuu fiirinayaa laa ilaaha ila allah adig amaan oo famada 30 yowman wuxuu leeyahay ay tagto 30 maalmood oo walam nara alhilaala wasamaa aanan arkinin hilaalkii 30 way dhammaato ogow bishiina ma aanan arkinin samadiina maxay tahay masxiya weeyaano daahma saara weeyaan way caad kaama xigo wax walbaa loo jeedi karaa xidig yara qor isana loo jeedi karaa sida macnaha weeyaan maxaa sameeynaa uu yiri imana wuxuu leeyahay qadaynaa yawm alfitri afurka maalinta waan soo qadaynaynaa waxaas kulli waxaan ula jeedaa dadka oranaya qadan nugulama lahan
ayaan khatarkeeda leh dadka waa wada qabaa saasoo imaam nawowi uu qabaa dadhahan waa maqlaayay imaam nawowi waxa uu qabaa in aan la soo qadayhaynin haas baa maqla iyadana marka muxuu yidhaahday yowma alfitri waa soo qadaynana hu yidhi liannahu tabayana annahu min ramadaan firya waxaa caddaata maalinta iyada inay ahayd maalin ramadaan ayaa caddaatay aysan maalin ciida aysan ahayn marka waana waa leeyahay waana soo qadayhaynaa sidaa ayuu qabaa weeyaan laakin laa kafaarata calaa man jaamaca oo maxaa laga wada marka waayahe macnaha qofkaas waxaa weeyaan bishuba ayaa dhacay imaamu raafici asagu waxau leeyahay wa naqlu qowla ibn xadaad can ibni shuray أيضا قال وفرع بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال شوال فأفطرنا ثم لم نرى الهلال بعد 30 وصام صحيح قضينا وانصو قضيهينا صوم أول يوم أفطرناه واتيهروا ويام لا إمام رافعي قبا لأنه بان أنه من آخر رمضان أنه من آخر رمضان لكن لا كفارة المجموع كتاب مجموع لإلى فيري صفحة لببقل صدن إيا تضبات فيري مجلدك لحاد فيري مكتبتهم كلا بدليهين مكتبة التوفيقية تاسويان أيها كلا بدلن ولا مركب عن لا مركب إن إسلامكي نجا علمي قبضناي loo doortay inay noqdaan muftiyool caam noqdaan ayaa meel walba qaradkii ka dhacay ka qoomeeyaha ummaddoodana u sheegaya annagu haddii dadka loo sheego maxaa ba'aya adiga maxaa kaa ba'aya qofkii soomay maxaa ka ba'aya runta haddaa u sheegto maxaa kaa ba'aya haddii anig kulli maxaa naga ba'aya wax ka baa macnaa ma jiraan weeyaan wax naga haba yaraatee ma jiraan saas ayaa loo jeedaa maalinta ayada ah oo fahmaysiin oo laleeyahay macnaa ayada marka xataa bisha kow la bilaabahayo marka kow la bilaabayo waad ogtihiin ninka la yidhaahdo sayidina cali muxuu ahaa asu wuxuu dhihi jiray lian asuuma yowman min shacbaana axabu ilaya min an ufdira yowmi ramadaana asagoo diidi jiray waxa la yidhah aharkaas macnahay ahar waxuu ahay maalin shacbaan oon soomo asagoo ka soo horjeeda mataa shayga la yidhaahdo yowmu shakiga maalin shacbaana oon soomo ayaa waxaa ka jeclahayo yiri maalin ramadaan oon cuno walaal maalin ciida ood soonto xaaraam oo la ogyaho ood macnaa cunto yaa waxay kaaga daran tahay maalin ramadaan oo soon cunto saas darteed marka waxaan rabaa halkan inaan ku qatimo in dadkii maalintaa ayada ah inay ogaadaan xujo sharci ah oo la sugay anuu kenyan ka hadlaya ma ka hadlaayo soomaaliyo dowlaa joogtay ayagaa fadhiistay ayagaana iclaamiyey ma ka hadlaya aniga kenyo waxaa u xil saaran jief qaadigan in la yidhah ani ma aqaano hadda lamana kulminin laakiin inuu xil saaran yahay oo dowladdu og tahay annaguna waa ognahay ciduna waa og tahay soomaaliduna waa og tahay dadkan kenyaantigana og yihiin asagaa wax walba ka doontaan asagaa wixira u fududeeya asaga ayaa dowladda isteeriga u haaya asagaa odhanaya maalin hebel waa faysto markii ciidaha la gaaro asagaa dowladda u sheegaya cid kale oo annaga culummadeenna kamid a ama culummada joogta kamid a magac kasta ha yeesheene cid inta u tagta dowladda dhihi karta maalin hebelaan ciidaynaa ama maalin hebelaan madda aan ciid dukanaynaa ee waa faysto miyaa jirta maya asagaa u xil saaran asaga ha looga dambeeyo haddii maantii horeeto asaga uu bilaami lahaa xujo sharci ayay noqon laheed bilowga horan sharci aan lagu haynin warka markaan idin leeyahay aniga dadkii jimco bilaaba ayaan kamid ahay haddana maalintii dambe soddon haddaan lasoo luuqluuqi lahayn dadka kow inay maalintii koowaad baadil ka dhigi lahay ayaan kamid ah anoo tayada ilaashanaya ma garat walaal wax adigayso waxba kaa qusaynin yaan la isku dhejinin waxaan rabaa waxaad ogtihiin america iyo yurub iyo meelo badan
oo leeya Kenya ayaa bishiis laga sheegay aasay ku afureen ku ciideen war dambiga ayaa iska leh war walaalo hadaa wax kale aad weydaan dadka u sheega qof kalka mandiqada oo joogo ayuu ku xugun yahay dhaha u sheega waaye hadii war adinka leeyahay maqlayo u sheega taas qatar weeyaan mid kale waxaan rabaa in halkan bogaadin uga jeediyo wadaad sheekh ah oo ka hadlayay hadda magaceeda ani aan sheekay meelaha Puntland dhinaca xigta ma qaane ka hadlay oo qirtay oo yiri annaga waana la siray cudur daarna bixiyay dadkeena wixii xaq ah u sheegay ayaan rabaa in aan aad u bogaadiyo oo iraahdo aad u mahadsan tahay ajirkeeda ayaadna leedahay intii adiga waajibka ahaana waa samaysay hadii kaba ay qaday waay u taalax kama saara adiga nin maziya gooba inaadan ahayn oo ay ilaahay dartii ka tahay oodan shacbeed goobaynin oo islaahay biri aan baalaha laga rifaad islahayn ayaa meeshii ka soo baxday waxaan ku leeyahay khayr jazakallahu khayran ku leeyahay kullu waxa isku waafaqsan Allah ta'ala in dadkii maalinta ayaga furay haday doonayaan xaq doonayaan inaan la dhihin soo qadaynina haso in la dhihinin ayaan u dardaarmaya oon u sheegaya oon faraya qofku dhahaya cibaado gudu iyo qofku dhahaya ha gudanin na isoo ka mid maahan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo tawfiiq Allah noo waafajiyo khilaafka iyo khalqalka iyo dhibka la isku wado oo cibaadadii soo gashana Allah naga kor qaado bisheeda ka Ramadaan kaana midaan khilaaf lahayn oo kuwii khilaafka wada oo ay wax xaq aan ogoleen anigaba Allah ka dhigay korolaha shay ilaahay si qaadsiyo umada dhaafsiyo waa sax macnaha weeyaan maxaa dib umada looma rabo maxaa yeelay qofku inuu dadka anfacayaa la rabaa insha Allah ta'ala waxaan leeyahay raalli ahaada inta yartaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh